gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag ayaa daafuray munaasabad lagu shaacinayo bilowga ololaha talaalka cudurka jadeecada ee gobolka Sanaag. Munaasabada shaacinta cudurka jadeecada oo lagu qabtay howlka xarunta dowladda hoose ee degmada Ceerigaabo ayaa waxa ugu horeynba halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag Dr. Cabdinaasir Cabdiraxmaan Maxamed. muddo badan sida la hor loo sheegay lagama soo may suurta gelin laakiin se ilaahay fadligiisa ka ayuu suurta galay ahamiyadda ugu weyn waxay tahay alwiqaaya khayr min al-ilaaj marka la eegayo waxyaabaha ka hortagga ah ayaa daaweynta ka qiimo badan marka aan dhiirigelinaya ama boorinaya waxay noqonaysaa bulshadeynta u faraya gobolka Sanaag inay isku dayaan barnaamijka talaalka ah sidiisa inay uga faa'iideystaan sababta haddii ay ka hortag fiican helaan ilaahayna la tala saartaan waxay ma doontaa inaan xanuunkii mar labaad ku dhici lahaa bisabab insha Allah haddii la ka dhigo talaalka inuu ilaahay kaga kafiyo insha Allah waxaa iyaduna munaasabadaas lagu daafurayay talaalka cudurka jadeecada ee gobolka Sanaag ka hadashay Maryam Faahiye oo ka socotay hay'adda UNICEF iyo agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Bashiir oo labadooduba ku dheeraaday muhiimadda uu leeyahay talaalku. ugu faraxsanahay habkii aanu UNICEF nahay in aad maanta u diyaartihiin in aad ka qayb gashaan oo dhiirigelisaan gobolkiina dadka ka shaqeynaya aanad ka qayb qaadataan olahan aynu ugu talagalay inaynu kaga badbaadino carruurtii ku wada talaalan ayaa cudurka imanaya marka waxa yaraanaysa tirada carruurta ee jadeecadu ay leyso marka markeeda horena wuxuu ku jiraa talaalkan caadiga ah ee MCH-da iyo xarumaha hooyooyinka dhallaanka laga sameeyo maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa bulshada degmada Ceerigaabo iyo guud ahaanba reer Sanaag ugu baaqay inay ka faa'iideystaan fursadda talaalka. dhul badan baa laga soo cabanayay jadeecada waxaan keenay waqtiga abaaraha nafaqa darrada abaaraysiga jooga imtixaanka dalka ka jira ayaamaha dhan wax ka fikiraynay talow sidee saa loo gelaya ilaahay hadduu qoladan keenay aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadnaqaynaa. gabagabadiina gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa isaguna dhankiisa bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inay la shaqeeyaan kooxaha talaalka fulinaya. hawshaas waa hawl muhiim ah talaalkuna wuu ku jiraa degmada Ceerigaabo ama gobolka Sanaag wuu ku jiraa tuulooyin badan oo laga soo qeyliyay baa jiro hadeer jadeecada loo raadsaday in ay soo qeyliyeen oo ay tiiman ku bixeen mar hore waxna lagama qaban karo hadduu cudurku dilaaco waxa laga qaban karaa oo qura cudurkaas uu ka hortag buu leeyahay. Yuusuf Cabdi Xasan Cadde, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Ceerigaabo.